madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo khudbad ka jeediyay shirka 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda cakran ee dalalka Falastiin iyo Israa'iil isagoo soo bandhigay sawirro ka turjumaya khariirada saxda ah ee dhulka Falastiin iyo sawirro ku saabsan qaxootiga Falastiin ee dhibaataysan waxaana uu yiri Israa'iil wali ma qanacsana waxaana ay doonaysaa inay sii wado boobka dhulka Falastiin oo ah arin daba socota qabashada Israa'iil ay qabsatay oo ay xaday qayb ka mid ah dhulka Falastiin waxa uu weydiiyay madaxweyne Erdogan qaramada midoobay iyo madaxdii caalamka ee shirka fadhiday xagee Israa'iil xuduudkeedu yahay haddii aan dib u tixraacno khariirada dhulkaasi oo dhan Falastiin ayaa iska leh tan iyo 1947 ilaa hadda mana qarsoona in Israa'iil ay 1967 ay bilowday qorshaha isballaarinta iyo boobka dhulka Falastiin madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan waxa kale oo yiri siyaasadaha Israa'iil waxay ku salaysan yihiin beegsiga masaajidka Al-Aqsa iyo Falastiin guud ahaan balse waa mid aan suurtagal ahayn waxaana uu intaas ku daray oo uu tilmaamay in qaramada midoobay ay qaadatay qaraaro badan oo ka dhana Israa'iil lamana meel marin waana wax lala yaabo doorka qaramada midoobay ee arrinta Falastiin haddii qaraaradaasi aan la dhaqan gelin halkee cadaaladdu ay ka jirtaa ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyay inaysan suurtagal ahayn in xal waara loo helo arrinta Israa'iil iyadoo aan la soo afjarin ururada argagixisada ee dalkaasi Israa'iil dawlado badan oo Mareykanku ay ka mid yihiin ayuu ku eedeeyay inay ku raaxaysanayaan oo ay sii hurinayaan colaadaha iyo dhibaatooyinka Israa'iil ay ku hayaan dalka Falastiin isla markaana ay siyaabo kala duwan u garabsiinayaan xoogga dawladda Israa'iil iyo ururada argagixisada ah Erdogan waxa uu tilmaamay in xaaladda Israa'iil ay dhaawac u horseedayso damiirka bulshada adduunka loona baahan yahay in si degdeg ah loo xalliyo arrintaasi madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo khudbadda uu ka jeediyay shirka 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ay u badnayd xaaladda Israa'iil iyo Falastiin waxa uu muhiimadda siiyay sidii wax looga qaban lahaa Cabdiqani Boos SBC